Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Bacda salaam. Waxaan ka hadlayaa 3 arrimood oo ah arrimihii uu ka hadlay Deni. Horta Deni xamar maxay ahayd hadduu tagayo maanta. Caqli baan ba ku jirin. Awal wax isla waaba ka hadhayo khalaas ka qanacay. Dowladdii wax walba diiday iyada isku koobtay. Oo diiday Soomaaliya waa diiday oo ka soo saartay distoorka. Hadduu maanta tagayo leeyahay doorashan ka gelaya. Horta caqli xumo ay ku tahay. Cashar baana loo dhigi doonaa. Kii farmaajo loo dhigay mid ka daran baa loo dhigaya isaga. Cid dooranaysaana ma jirto. Ta kale Khaatuum ka hadlay. Khaatuum dib mar hore kala bixin saan anigu arko. Markii hore watay Khaatuum tiri anagu maxay ahayd maamul baan rabnay inaan dhisano. Xildhibaanada iyadana waxaan rabnay inay soo wareegaan. Dabeedna saasay talada go'aan ku gaadheen iyagu. Maxay ahayd wixii u harayna inay yihiin bay sheegeen kala gurasho. Dabeedna isaga suuqa ka soo doortay xildhibaan ka soo kaxaystay oo qortay si uu madaxweyne uga noqdo Puntland. Iyaguna way iska aamuseen iyagoo maxay ahayd aan ku jirin iyagoo aan shaqo ku lahayn. Waxay yareen wuxuu ku helay isagoo ku helo isaga yaqaan laakiin anagu maamulka iyagu waa gooni. Inkastoo isagoo aan raalli ka ahayn oo markii ay yiraahdeen maamul baan dhisanaynaa uu ka maxay ahayd ka aamusay oo ay shiraar ugu yeeray shiraarkiina uu ka aamusay tagi waayay shiraarkii tagi waayay. Markaasay go'aankooda qaateen inay ka aamusaan Deni oo hawshooda ay wataan hawshoodiina waa wataan meel fiican bay noo maraysaa. Tan kale ee gobolka Sanaag wixii degan bay taallaa cergaa wixii dega bay taallaa hawshaasi. Waana dhulbahante warsangeeli iyo maxay ahayd Gahayli. 3 qolay taallaa hawshaasi ka yeeli lahaayeen. Hadday nabad ku dooni lahaayeen iyo haddii maxay ahayd si kale u dooni lahaayeenba ama cid yeelan lahaayeen iyaga u taallaa hawsha iyaga taallaa. Maxay ahayd Deni awal batiilaas camadna shaqo kuma lahayno. Waa tuu maxay ahayd meelaha ka hadlayay. Dadkii halka u soo gurmadeen waxay ahaayeen hiil dhalinyaradii ugu timi hiilka bay ahaayeen. Iminkana halkii uu taagan yahay dadkii dagaalka ku dhintayna cilmiskaadna Ilaahay u naxariisto. Inta ku jirtana iminka Ilaahay u sahlo intii dhaawacantayna Ilaahay ha caafiyo. Cergaabana dadka degan bay taallaa. Nabadan isku dhex marna buu leeyahay Somaliland isagu. Dad maxay ahayd nabad soo wada ma nabad doonayana. Uma eka kuwa habeenii maalin dagaalka soo qaadaya. Marka dadkaas ay u taallaa baan leeyahay ka yeeli lahaayeen. Isha aan arkona nabad ma rabaan dadka kani. Marka khayr Ilaahay ka dhigo. Sidii roon Ilaahay og. Maxay ahayd dadka kan iyadoo guryahoodii iyo dhulkoodii la haysto inuu yiraahdo aan dhex marno khalad weeye waa arrin ku khaldan yahay arrintaas. Marka dadka degan bay u taallaa hawshaas. Sidii ay ka yeeli lahaayeen waa inay ka tashadaan isu yimaadaan ka tashadaan dhulbahante iyo warsangeeli iyo Gahayli. Saasaan leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.